ما آمن kartid waxa ay sameeyeen Brian waxa uu guursaday walaashiis ka yar Brianna qisadan ayaa waxay ka dhacday dalka Kenya Brian iyo Brianna ayaa laba qofood oo walaalaha isku aaba ah laakiin kala hooyo ah kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Bula Leila Media maanta waxaan idin wadnaa qiso la yaabkeeda leh fadlan page-ka noo follow gareey muuqaalka meel noo gaarsiiyo daawasho wacan oo wanaagsan magacaygu waa Brian K waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray Kenya gaar ahaan Kiambu County aabahay aniga oo yar ayuu naga tagay dib dambana nooguma soo laaban yaraanteedii waxbarashadeedii waxa iga bixinaysay hooyaday noloshu way iska adkeed laakiin wax walba oo caqabad ah waxa xabadka u dhiganaya hooyaday saas ay tahay hadda waan ka soo gudubnay magacaygu waa Brianna waxaan ahay 19 jir waxaan la soo koray ama soo korisay hooyaday ayaan la noolaa heerkayga waxbarashada hadii aan ka hadlo yaraanteedii waxaan ka bilaabay waxbarashada dugsiga hoose ee dhexe sare markaan soo dhameeyay waxaan ku biiray jaamacadda anigoo dhiganaya ayaa waxaan is aragnay Brian halkaas ayay ka bilaaban doontaa qisadeeni Brian markaan is aragnay labadeeni si gaar ah ayaan dadka isaga xulanay waan isku soo dhawaanay waxyaabo badan oo dabciyo waxa jiro aan iskaga lahaanay ama isku ekaansho dhanka dooqa markii la yiraahdo waxyaabo badan oo isaga ekaanay ayaa jiro oo labadeena isku soo jiiday sheekadan waxay ka bilaabatay ka helitaan kadibna waxay u soo gudubtay saaxiibtinimo jacayl kadibna waxay ku dhamaatay guur ayay ku soo dhamaatay sida sheeko walba ay ku dhamaato wali labadeena isma naqaano oo qofka kale waalidkiisa ma yaqaano inaan walaalanahay isma ogin laakiin waxa su'aal ah sidee isku ogaadeen labadooda inay yihiin walaalo hal aabban ay wada leeyihiin Brian ayaa nooga sheekaynayo maalmaha ka mid ah labadeena oo guriga isla joogno oo fasax aan nahay anagoo sariirta saaran ayaa waxaan ku arkay mobilkeeda sawirka aabahay dabcan aniga aabahay sawirkiisa waa aqaanay wajigiisana waa garanayay markii aan arkay isla markiiba waa weydiiyay waxaan dhahay yaa waaye waxay tiri waa aniga aabahay isla markiiba waa shock garoobay oo waxaan ku waashay oohin gabadha aniga aan guursaday ama xaaskayga oo aan jeclahay waxayba noqotay gabar aniga ila dhalatay oo walaashay aniga iyada waxaan nahay isku aabo laakiin isma naqaano daawada arintan oo kale haday kugu dhacdo maxaa soo bin lahayd maxaa ku falcelin lahayd mise sida Brian oo kale noloshiina hore ayaa u sii wadan lahaydeen Brian ayaa wuxuu yiri anaga markii aan ogaaday xaaladdu halkaas ay marayso waa xilli midi uus ay ku tagtay waxbana aan laga qaban karin waxaan go'aan ku gaarnay in aan nolosheena hore u sii wadano cidna aynaan u joojin qaraabadii ehelkeeda dadka waxay rabaan hadhahan wax naga gala ma laho nolosheena inaan hore u sii wadana go'aan ku gaarnay xilliga hadda la joogo waxay ku nool yihiin Kenya labadooda way isqabaan dad isla nool kaasay ku dhamaatay asxaabta page-ka noo follow gareey muuqaalka meel noo gaarsiiyo commentiga nagu la wadaaga fikirkiina iyo aragtidiina